بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال ميل باجوكتان ايسي والبانو داونيسان كسو دوادا برنامج كقلن اي قرال وحلقنا وكلا كداوتان تلفزيون قرن كسوماليات حرونتي سدحه مقالة مقدشو تضوات كان ربي رالي هدو كان نوضي برنامج كان واحد مرتين اوغوه مهد محمد عويل oo qoraaga buuga ama dhiganaha la magac baxay hambalye qaran naadiga nabad iyo nolol oo dhiganahan uu soo saaray mahad oo kamid ah bahda qalinlada Soomaaliyeed ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay martida toddobaadkan barnaamijka maad soo dhawow ugu horeyn bal waxaad sharaxaad ka bixisaa buugan aad ugu magac dartay hambalye qaran iyo naadiga nabad iyo nolol بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين marka koowaad waxaan salaamayaa suxufiyiinta idaacadda telefishinka qaranka Soomaaliyeed salaan ka bacdi buugan wuxuu ka kooban yahay hambalyo qaran naadiga nabad iyo nolol wuxuu ka kooban yahay 5 maanso shantaas maansada ugu horeysa waxaa la yiraahdaa magaceeda ilaal qaran waxayna soo baxday xilliyadii ay jireen maamuladii ku meel gaarka ahaa waxayna ka turjumaysaa maansadaasi waxyaabihii xilliyadaas jiray dabcan oo wadanka ka dhacayay dibad iyo si walbaba ha ahaatee maansada labaad buugan hambalyo qaran naadiga nabad iyo nolol uu xambaarsan yahay waxaa la yiraahdaa magaceeda may iyo maxaa tiri maansadaasi waxay soo baxday 3 bishii February 2012 iyadoo xaloo kale ay dhacday doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalinkii ku xigtay ayay soo baxday maansada ku xigta oo saddexaad waxaa la yiraahdaa magaceeda hambalyo qaran waxaan ugu magac daray buuga maansadaas magaceedan buuga u baxshay maansadaasuna waxay soo baxday xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku marayay socdaalka lugta ah gobolada Soomaaliyeed qaybo ka mid ah maansada ku xigto afraad waxaa la yiraahdaa magaceeda naadiga nabad iyo nolol waana maansada igu dhalisay inaan idinku soo booqdo xaruntiina dhexe daatihiin bahda telefishinka qaranka Soomaaliyeed maansadaas hadaa marka wax yar ka taabto waxaan leeyahay waa maanso fan ah waa maanso iskoor ah lidaalika waxaad ku arki doontaa gudaheeda insha Allah 22 mas-uul oo ka mid ah xukuumadda hadda shaqeysa ee nabad iyo nolol ayaa ku xusan waxaad arki jirteen fanka oo ka hadla Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax qosay shakhsiyadiisa oo lagu amaanayo ama khayre wax lagu amaanayo kaligiis laakiin maansadan waxay xambaarsan tahay xukuumadda nabad iyo nolol inteeda muhiimka ah iyadoo dee maadaama wuxuu ay tixi tahay aysan tiraab ahayn aan wax lagu soo koobi karin marka ragga muuqdo oo kamida naadigaas nabad iyo nolol laakiin hadda aan ku jirin afwan insha Allah ta'ala marka la soo arki doono hadii Ilaahay yiraahdo marka maansadaas waa sidaas midda ugu dambaysa waa duco iyo dardaaran waxaan la dardaarmayaa aqalka sare ee sanatarada odayaasha waxaan la dardaarmayaa xildhibaanada waxaan la dardaarmayaa xukuumadda waxaan la dardaarmayaa waxa la yiraahdo garsoorka saasoo kalena si guud waxay ugu ducaynaysaa maansadaas ummadda Soomaaliyeed haday shacab tahay iyo haday dawlad tahay intaba marka laga hadlayo qoraalka Soomaalida inta badan waxa ay aad ugu cawadaan caqabadaha inta badan haysta bahda qalinleyda ama bahda qorayaasha Soomaaliyeed ma aaminsan tahay inay jiraan caqabadaas la mid ah oo ay dadka la kulmaan intay aqrisanayaan buugaagta qorayaasha ee Quraan caqabado way iman karaan
qofka qoraaga ah ku yimaada especially dadka aan turjumaanka u ahay oo kasoo jeeda gobollada maxaa yeelay waxaad dareemi kartaa wax fara badan oo tusaale ahaan muqdisho yimaada oo loogu talagalay kaabayaasha bulshada in aysan siday ahayd aysan u imaan gobollada caqabadaas xaqiiqatan way jirtaa marka qofkii wax uu fankiisii ama maskaxdiisii uu kusoo gudbiyo ama qoraalkiisii ka kaabiyo sida maktabadaha oo kale waxyaalaha la midka oo kale qofka heli maayo marka caqabadahaas way jiraan insha allahu tacala lakin waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in aanu ka oonbaxno insha allah barnaamijka qalin ee qoraal toddobaad walba qofka martida ku ah daawadayaasha waxay isweydiiyaan waa kuma markaa leenahay waa kuma mahad maxamed cawil waa qof nocee ah mahad maxamed cawil kow waa muwaadin soomaaliyeed labo waa abwaan qoraa ah taariikh nololeedkiisu wuxuu dhashay 1974 saa markaan ku leeyahay hadda wax dumarana lama joogaan rag u baana waxaan ku dhashay degmada caabudwaaq haddana waxaan ahay arday ka tirsan ama dhigta jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda galmudug kuliyadda ama facultiga daraasaadka islaamka iyo luqadda carabiga waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala hankayguna uu yahay inaan ka mid noqon doono insha allahu tacaala qof ka mid ah kaabayaasha ummadda soomaaliyeed ilaah idinkiisa markaan usoo noqono dhiganahan aada qortay ujeedka uu ku yimid fikirkan ah inaad qorto buuggan muxuu ahaa markii hore wuxuu ahaa sidaad la socotaba dowladda hadda jirta waxay ka mid ahayd ama ay ka mid tahay dowladihii macnaha markii laga bilaabo burburkii macnaha 91kii marka laga soo bilaabo dowladihii dalka u dhashay ayay ka mid tahay isla markaas markii ay dhalanaysay dadku han fara badan oo aada u fara badan ayaa loo qabay dowladdan markii ay dhalatay kabacdi waad ogeydo dalkeenaan waxaa ka dhacay isbeddel guud oo rabbaani ah oo qof wata haba yaraatee oo gooni ah markaas ama cid fangareynaysa aysan jirin waxaad la socotaa 8 February markii doorashadu ay socotay arrimo fara badan oo mucjisooyin ayaa dhacay waxaa ka mid ah mucjisadii ka dhacday gobolkan Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar taasoo ahayd halku dhigii ay ahaa arfarmaajo iyo geey marka arrimahaas oo dhan dad badan bay shucuurtooda kacsheen dad fara badan oo maansahayaana ayaa ka hadlay maansadaan marka waxay ka mid ahayd dadkii saas ahaa ayaan ka mid ahaa dabcan buuggaana inaan si toosa usii dhexgalo gudihiisa oo aan sii diyaarsho waxay ugu kalifay isbeddelkaas guud ee dalka macnaha ka dhashay waxaa tahay abwaan soomaaliyeed dabcan wax ku qora afka soomaaliga ilaa imise buugaag ayaad qortay waxaan qoray buuggan marka lagu daro maca 4 buug ayaan qoray buugga koowaad waxaa la yidhahdaa magaciisa faqri maahine fuquuq baa jira waxaan ula jeedaa dalka soomaaliya waa dal qani ah waa dal leh bad ku filan leh biri ku filan leh hawo aada u macaan iyo cimilo 100% ah saasoo ay tahay dadka ku noolna waxaa la dhihi karaa waa dad kooban oo yar marka haddii nidaam iyo cadaalad u hela dalkaanu waxaan garan karnaa in qof kasta hortiisa uu ku noqonayo maalqabeen qani ah marka buuggaas waxaan u baxshay magaciisa faqri maahine faquuq baa jira waxaan xasuustaa hadda ka hor adoo raalli ah erey uu yidhi hadda danjiraha u fadhiya soomaaliya kenya mudane tarsan xilligii uu ahaa
duqa muqdisho muqdisho haa hadalkaas wuxuu yidhi inta qof aan aqoon lahayn oo lagu soo xulay qabiil uu fadhiyo xaafiis qofkii aqoonta lahaana iyadoo laga tegay qabiil ahaan looga tegay uu fadhiyo derbi dalkan horumar gaari maayo marka waa faquuqi ogow marka buuggaas waa jira faqri maahin faquuq baa jira kan labaad waxaa la yidhahdaa magaciisa afkaaga hooyo aaminoo ku faan wuxuu ka hadlayaa luqadda soomaaliga naxwadda ay leedahay wanaagga ay leedahay qodada dheer oo ay leedahay xagga macnaha kan saddexaad waxaa la yidhahdaa magaciisa dictoorkaa dabiibiyo digfeer ma lahan caashaqo yaa la yidhaahdaa midkan hadda u dambeeyana waa kaad gacanta ku hayso hambalyo qaran naadiga nabad iyo nolol waxaad inoo sheegtaa suugaanta ku jirta buuggan hambalyo qaran waxaa ku jira 5 suugaanood shantaas midka u horeeya waxaa la yidhahdaa dilaal qaran wuxuu ku soo beegmay oo aan curiyey xilliyada aan kuu sheegay oo burburkii especially xilliyada kumeelgaarka maamulada kumeelgaarka ah ay shaqaynayeen weliba muqdisho yaan jooga markaas anoo soo booqday meelo badan oo ka mid a magaalada xarumo fara badan oo dowladdu ay lahayd yaa markaan arkay isbeddelka iyo dalku suu markii hore ahaan jiray habeenkiina aan u hoyday hooygaygii ahaa xaafad aan deganaa oo ku taalay meesha la yidhahdo hurwaa ayaa waxaa igu soo dhacay beydka u horeeya kaas oo ka bilaabanaya haddii alla kuusama ogol yahay baarlamaanka dunida iyo beesha caalamka oo idil bartamaha afriqiya baawarkaanu ku lahayn mugna maantii kama yaal taariikhdan balaaga ah rag baa badar ku qaato shisheeye oo ku biilaan halkaasuu ka bilowday waa ilaa 85 meeris meelahaas ama beyd waxaan dhihi karnaba sidaasoo kaasuu ahaa midka labaadna wuxuu ahaa may iyo maxaa tiri oo soo baxay 9kii bishii February habeenkii doorashada subaxeedii farmaajo la doortay kaasna waxaan ku cabirayay ama afmaay ha lagu hadlo ama maxaa tiri ha lagu hadlee shucuurtii shucuubta si isku bedeshay kaasuna midka labaad buu ahaa kan saddexaadna wuxuu ahaa maansada saddexaad hambalyo qaran baa la yidhaahdaa xilligii madaxweynuhu ku marayey gobolada aan ku sheegay lugta ayay soo baxday midka afraadna wuxuu soo baxay waa ka naadiga nabad iyo nolol waa kaan ugu jecelo hadda buugga ku qoran wuxuu soo baxay xilligii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka mudane xasan cali khayre uu ku marayey gobolada caabud waa qabaan joogay subaxii uu nagu soo kalana oo nagu soo aadanaa waxaan qabnay han aad u fara badan iyo hilobaan waxaan u qabnay inaan aragno ra-iisul wasaaraha awal telefishin ka arag baraha bulshada ka arag laakiin si life umaana arag ma garata marka waxaan jeclaystay asaga iyo xukuumaddiisa waxqabadkeedii inaan maanso ku cabiro markaasaan waxaan sameeyey maansadan la yidhahda naadiga nabad iyo nolol insha allah waadna ka bogan doontaan haddii ilaah yidhahdo qaabkay u dhacayso insha allah buugaagta aada qorto inta badan maxaad kaga hadashaa ma qoraal keliya mase waxaa ku jira gabayo ama maansooyin waxay u badan yihiin hadda buuggan wuxuu u badan yahay maansooyin laakiin kuwa kale waxay u badan yihiin qoraal caadi ah walow meelo laga yaabo in maansadu ay ka soo gasho maxaa caqabada ku soo maray intaad qoraysa dhiganaan la magac baxay hambalyo qaran waxa ay soo maray maadaama gobol aan joogay waxaa laga yaabaa in aadan helin wax fara badan oo qalab ah oo kaa saacida ma garanaysaa inta aad wax qoraysid iyo waxyaabaha saas ama maktab iyo wax lamid oo maraajic ah waxyaabaha saasa maahan laakiin wax aada u weyn ma aysan jirin bandhigii shanaad ee buwaagta muqdisho sanadkan waxaa buwaag loogu deeqayay looga arurinaa maktabadda degmada cabdiwaaq qayb intee leeg ayay ka qaadan kartaa
dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka degmadu wax weyn bay ka qaadan kartaa xaqiiqatan caawud waaqana waxaan dhihi karnaa aad iyo aad ba xaggaas curinta iyo maansooyinka ay uga soo baxdaa waxyaabo fara badan oo iskoora aan way jiraan oo caawud waaq ay leeyihiin xagga fanka iyo markaan ka hadlayna madadaalada waxaad la socotaa halkaan aan ka salaamayaa master cabdirasaaq tooreye waa taqaanaan oo ah madaxweynaha Everland waa taqaanaan baan u malaynayaa ama saxaafadda dabcan waad ku aragtay marka caawud waaq waxay leedahay hal abuuro fara badan iyo fano badan bay leedahay markii la dhaho Mahad Maxamed Cabil waa qoraa Soomaaliyeed waa qoraa hal abuure abwaan maasooyin iyo sugaanyahan tan iyo markaad bilaado qoraalka ilaa maanta buugaaga hambali qaran ma jira dhibaatooyin aad kala kulantay inta aad ku jirtay qoraalka haa way jiraan su-aashaas waan kaaga jawaabay way jiraan isku mid mana ahan hadda tusaale ahaan waxaa laga yaabaa markaad fiiriso buugga intaad ku dhex jirto gudihiisa wax badan baa qofku u baahanaya kadaalika markuu dhammaystiro xagga daabacaadii waxyaabaha lamidka oo kale waxaa laga yaabaa in sida hadda tusaale ahaan dee caasimaddu ay tahay inaysan wax walba ahayn baa suuragala waxaas marka way iska jiraan laakiin haddee waa nin baa wuxuu ku maamaahay harsan anaa ceelka keenay nin iyo awoodiisna way is leedahay qofka ku khasbanya hadda meeshuu joogo inuu iska qanaa ku khasbanya qoraalka buwaagta hadda waxaad moodaa inuu sii badanayo isla markaan dhalinyarana aad ugu sii badnaanayaan in ay buwaag qoraan maxaa ku dhiirigelinaysaa arrintaas waxaa ku dhiirigelinaya mar kasta oo dadku ay bataan ama sanad walba oo cusub oo la gaaro wuxuu wataa dhacdooyinkiisuu wataa ama wax markaas cusub oo awal horey aan u jirin saasoo kale waxaan dareemi karnaa dadku marba mar ka dambaysa macnaha caadi ahaan marka aan fiirino way badanayaan kullamaa marka ardadii ay badato aqoonta ay badato hal abuurka iyo qoraalkeena waa badanaya taasaan is leeyahay way keenaysaa hal ilabo maansooyinka aad tirisay waad kaga hadashay buuggan oo ay ku jirto maansada maay iyo maxaa tiri bal bulshada ma la wadaagi kartaa mid ama labo oo fariin diri karto waxaan rabaa inaan soo qaato insha allah maansada aan ugu magac daray buuggaba oo ah naadiga nabad iyo nolol taasaan insha allahu tacaala soo qaadanayaa waadna arki doontaan insha allah intaana gelin marka maansada naadiga nabad iyo nolol waxay ka kooban tahay 3 qaybood kow xusidda ama magacaabidda 22 mas-uul oo ah xukuumadda hadda jirtay naadiga nabad iyo nolol anoo u dhigay habfaneed ama hab ciyaareed waa 22 laacib garoonku waa istaadiyo muqdisho taageerayaasha ama daawadayaashu waa shacabka Soomaaliyeed qaybta labaad ayagoo isku duuban guulihii ay gaareen iyo koobkii ay qaadeen 3 daawadayaasha waa shacabka Soomaaliyeed qaabkay uga falceliyeen ciyaartii noocaas ahayd ee naadiga nabad iyo nolol waxaad arki doontaan insha allah shuruucdu ciyaartu waxay leedahay waxa la yiraahdo musdalaxaad ama ereyo u gaar ah waxaa ku xusan naadiga nabad iyo nolol ereyo muhiim u ah ciyaarta sida rigooraha bilisyoonka koornada hobseedka jaalaha roosada iyo waxyaabaha la midka ah sidaasoo kale waxaa ku xusan ereyo aada ay u isticmaasho media u isticmaalo sida blog commenty like share and page marka insha allah waa bilaabi doona haddii alla idmo dhegeysi wacan bismillah waxay baylaha noqoto banka ay wareegto cadow baasha laacaba bismillaahi dabadeed baryo eebbe iyo duco
baari waa ilaahaye baadideenni waa timid baarqabaa inoo kacay horay aanan loo baran bayskooda qarannimo buro iyo badbaadaba boqor ha ugu deeqee bal aan eegna waa gare naadigeenna loo bogay bilowgii ciyaartiyo faynalkii ay badiyeen waa burhaan la siiyee markii khayra baaso uu sallaxa banooniga farmaajaa la bayro bidixdina ku qaato gooshana la beegsada dirbadiisa baylka ah ma haweysto boortu baallaha waxaa jira oon marnaba barkaadayn xarakaadka baxayiyo fursadaha aan baylihin waa abuukar baaliyo master beyle ee garo cawad baanan bootiyo wax dastuurka baal maray ama beydad foorara damaaciga badeenniyo aqbalaynin boojayn bandarkii culumtiyo baabkeenna diimeed sida baaska loo dhigo birta loogu shiisho bu-da loo garaacana mahdi yaa wadar inoo baray waa xulkii banaadire barta dhexe waxaa yaal waa bahdi yariiso allaahuma kfir lahu warxamhu waa bahdi yariisow islow baratankiisii barcelon kolay tahay laacibada Baraasiil marna umay bareeraan difaaceena buurtiyo bashiir goobe fuulkiyo uu diintiisa odowaa boortaheena baydale mana baasmareeyaan baxnaankeena sabriye ah birmashadii sadiiqe waa koox isbaratoo weligoodna badiyee maxay weerar baasoo ama biiman qaba adag darsi ay bareenoo baajiyeen siduu rubay bilisyoon rigooriyo koorno baale laga ganay jaanis bilig u soo yidhi ma ay beeldareeyaan bilkhayr dhalatay weeye khadiija u biri ma ah khadiija maxamed diiriye khadiija u biri ma ah baandhayta tiimkiyo bandhigyada faneedkiyo shacabkoo baraaruga burji gaara weeye wuxuu buuq yaraadaa ciyaartuna ay bilantaa markii goodax soo baxo weli maanan bogan oo rag aan baaqanayn iyo bokolaan idiin furin bilad sharafta naadiga dalxa iyo u boqooloo booraan ka saaroo adimada u baakima haddaan faarax biimayn faarax cabdi xasan xildhibaan haddaan faarax biimayn naftiisana u baayicin xilliyada ay ba-an tahay ugow libin ma barideen carabkiisa boog iyo bir ilaahay ma tusee maareeye balaaqadii waa baanad lagu furo bool walboo adkaado loo bareeri waaye mursal boorka uu qoro mursal ayna waad ogtihiin wuxuu u qaabilsan yahay xukuumadda iyo dowladda xagga sharciga Soomaaliya ciyaartuna shuruuc ay leedahay mursal boorka uu qoro bayaan wuxuu ku sheegaa qodobaan banaanay jaalaha ka baaqdo horseedkana ka bayro rooso ha u bareerina ninkan bilif gareeno bidix midug u qaatana waa abaal uu beertay bedel bay u jeedaan bal aan yara dawaafne bilaash kumay imaane Omar bal ila daya wakaasamada booqdo barihii bulshada iyo BBC-da lagu qoray boobkii magaagii burcadu ay wadeen oo badeennii ku qaadeen burburkii gadaashiis bidhaan baa kansalayoo balayn saxa la yimidoo baajiyey khayraadkii baatuleen shisheeyo haddaan burka cawskiyo loo xeerin baadkoon bahalkana yur laga odhan baxsan sidigta maydhuub baryasiimo joogtoo bire lagama buuxshee jamaal sidii naloo baray waajibkiisii bogay oo shaqadiis ma baalmarin okay ciyaartu maxay leedahay kabtan iyo tababare sooma kabtan bilaha kooxdan tababaraha soo baray guulahaas aad barateen waa bare farmaajiyo barakaale khayree badqab wacan allowsi intaas waa 22kii ku jidhay garoonka ama kaydka ahayd
haye xaasilkii ama natiijadii ka soo baxday ciyaartooda waata bulshaday u dhaarteen baahidooda gaarka ah inay inay badi daboolaan axdigiina may burin bashbash iyo baraariyo barwaaqay horseedeen burqashadii shidaalkiyo wasaaraddu carowdaan baryo dhow sugaynaa waxay baafiyaan oo jeelasha ka bixiyeen ubadkeenii baad maray hooyadii basaastoo beerkuna holcaayo booyiisa leylkii boholyow daraadiis baraf bay ka mariyeen waan aragnay wax badan sooma maxaabiistii tii etoobiya tii hindiya iyo wix lamidka ah biixidii murgacatiyo balaladii dalkeena uu shisheeyuhu ku baansamay ku xoogeystay bahadilkii inagu dhacay sidii berisamaadkii boqol ka dhigo oo boggeenii inagu qore beesha caalamkiiyo igad haddaan been la sheegayn baawarkeeni noo qire ciidankiina baal sare geesiyaal bilgeyre ah xasan duwani baandadi yuu berigan joogaa baqadirir yar mooyee burseelkii inagu jiray baabi'iyey shacabkoo dhiigoodii bannaystoo shisheeyuhu ay beereen bartoodii la waayo biriq danabu leeftoo baacsi baa u soo baxay iyo beegsi udowaa meela socda baacsi baa u soo baxay iyo beegsi udowaa bilaawahoo la tuuriyo buntuqoo la wada dhigo beelahoo israaciyo boggoo la isi saariyo walaalnimo in loo baxo ayay buur dusheed iyo baarka sare u fuuleen nabadday ku baaqaan noloshay bineeyaan iyagoon wax badan jirin bulaaliyo dalkiiyo berrindoo ku wada fure boogaha qabiilkiiyo jaahilnimada baahdiyo musuqay baloogaan aqoon-yahan bislaadiyo brofaysaraa jira boqor nagu manaystee waxay ku badiyaan waxay ku boobaan commentina ka bixiyaan sheerkana ku badiyaan wax kastoo bilaayo ay dhaansanayaan shacabkooda beerkiiyo bayjka ay wadaagaan taageerayaalkii noo dhammaatay taageerayaal baxay boholyowga qarannimo lagu beeray baar ciid oo bogaadin ugu filan yaa garoonka buuxsho calamada babinayo bisinka iyo burdaha iyo balaayo iyo xijaabka bartabaha habeenkii baajiyaan maraano inuu nacab bargo-ay iyo cadow uusan baga oran beryo kale la doorto weligoodna badiyaan ayay boqor ka tuugaan laguna bishaareen aad iyo aad umahadsan tahay mahad waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka maadaama aad ka mid tahay bahda qalinleyda soomaaliyeed isla markaana tahay arday hadda dhigtay jaamacadda ummadda farceeda Radwaaq maxay tahay qorshaaga mustaqbalka dhow maxaad ugu dambeyn ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee bahda qalinleyda ah ma sha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed si caam ah dalku maanta meesha uu marayo iyo calanka babanayo iskama imaan rag baa keenay waxaa keenay Israa'iil waxaa keenay halgankii dheeraa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaa keenay Kiisha Xasan Barsame waxaa keenay Axmed Gurey waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed harka maanta aan harsanayno haddaanan xagsan haddaanan ka shaqayn midnimada Soomaaliyeed haddaanan ka shaqayn qarannimo haddaanan ka shaqayn waxii mustaqbalkeena iyo kan awlaadeena iyo ubadkeena keeni kara harka aan ku jirno ma sii harsan doono gaar ahaan waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa dhalinyarada wax qorta ama suugaanleyda ama abwaanada in nin walba ama qof walba meeshiisa shaqadii u kala laabmo inaan xukuumadda hadda shaqaynaysa iyo dowladdan keligeed aan wax lagu hadlayn ee la garab istaago dumar ahaan aqoon-yahan ahaan caqli ahaan abwaan ahaan qoraal cid walba ay garab istaagto sidaas daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay subxaanahu watacaala xarigiisa qabsada
hana kala teganina midnimaduna waa shay aad iyo aada muhiim ah marka inaan midoowno waad aragtaan maanta meeshaan marayno baddeenii yaa waxaan ugu haystaa Kenya nin baa wuxuu yidhi aar ha i dilee yaan dawaco inay soo saarin iska daa bal haddaan ka baqi lahayn caddaan waa meeshiisee dee waad ba aragta afrikaankii baa say rabaan annaga noo gelayeen taasna waxay ku timid kala daadsanaanta iyo dabca faraha badan oo lagu jira waxaan leeyahay marka waxaan dadku noqon karnaa meesheena iyo ka fiican aan ku tegi karnaa in aan dowlad iyo shacabba isgarab istaagno mayada faraha badan iyo diideeda faraha badan waxbaa ku burbura waa in la isgarab istaagaa marka midnimadaasaan ku baaqayaa iyo in dowladda aan garab istaagno mucaaradada faraha badanna aan yarayno sababta maxaa yeelay xilna as mucaaradnimaba joognaba markaan dad noqono amina markaas waxa ceebaha noo muuqdeen waa mahadsantahay aad ay umahadsan tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabada barnaamijka qalin iyo qoraal oo toddobaadkan ku eegeynay dhiganaha la magac baxay hambalyo qaran naadiga nabad iyo nolol waxaa soo saaray ama qoray buuggan martida toddobaadkan ee barnaamijka noogu ahaa mahad maxamed cawil nuur isku xiraha barnaamijka maanta wuxuu ahaa cabdulqaadir cabdulaahi catoosh dhinaca kaameradana waa cismaan nuur abkey dhinaca farsamada waa muuse cabdi cali anigoo cabdulaahi axmed kulmi ayaa soo niyada halkaan iga soo jeedinayay barnaamijka waxaa soo saaray cabdulaahi maxamed amiin cabdulaahi qorshe intaan barnaamijka midnimadan ku kulmi doono waxaa idin kaga tegaya sidaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu